sincad waxa ay soo saartay oo ay idin soo bandhigtay oo soo sharaxday gabdhihii ugu badnaa waa ururka gabdhihii ugu badnaa soo bandhigay weeye 242 gabdhood ayuu soo sharaxay urur siyaasadeedka sincad bacda salaam runtii waxaan idinka mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee u soo baxdeen sida sharafta leh maalintan kulul ee qoraxda u soo baxdeen idinkoo garab istaagaya muujinaya taageerada iyo awoodda aad ku leedihiin magaalada aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin runtii waxaan kaloo leeyahay si khaasa reer Garowe waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan leeyahay Garowe oo caasimadii Puntland oo ah magaalada ugu nabadda badan runtii waxaan leeyahay ma mudna maalmaha kan waxa ka dhacay Garowe waxay u baahan tahay isbedel Garowe waxay u baahan tahay in amnigeeda la sugo amnigeeda runtii meesha uu maanta marayo meel sax ma aha in ay ku soo badanayaan in dhalinyarada loogu yeero cabtooyga in qoriyo la iska sito hagi hadda xabada halka shacabka meeshay marayeen ka riday oo qoriyaha xilka isaga tuuraya waxay u baahan tahay Garowe waxay u baahan tahay maayar ay jeydo maayar matani kara Garowe maayar macnaha iyo qiimaha ay adduunka Puntland iyo Soomaaliya ugu leedahay marka sidaa darteed waxaan leenahay reer Garowe waxaan leenahay isbedel ayay u baahan tahay Garowe isbedel la taaban karo ayay u baahan tahay isbedelkiina maanta gacantiinu ku jira inaad doorataan maayar macna leh maayar matali kara magaalada amnigeeda sugan kara sincad waxa idin soo bandhigtay xubno wax ku ool ah oo haddii aad doorataan soo saarin kara maayar magaalada matali kara maayar magaalada amnigeeda sugan kara maayar magaalada cashuurteeda ururin kara maayar cashuurtu ka qaaday ku celin kara maayar dhisin kara magaaladan maqaamkeeda kor u qaadin kara ayaan idin soo bandhigaynaa haddii aad doorataan xubnaha ay idin soo bandhigtay sincad runtii waxaan leeyahay maanta dimuqraadiyadda maanta ka socota Puntland waa mid daba weeye waa mid isbedel keeni karta weeye waxaan leeyahay runtii wax maanta ugu farxo weeye in ay in ku dhow 4,000 oo dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho ay maanta isu soo sharxeen golayaasha deegaanka ee Puntland 33 hadda ay doorashadu ka socoto 33 degmo ay doorashadu ka socoto runtii wax lagu farxo weeye waxaan kaloo runtii aan bulshada weynta u sheegayaa reer Puntland waliba gabdhaha oo ah dadka ugu badan bulshada ugu badan waxaan leeyahay sincad waxa ay soo saartay oo ay idin soo bandhigtay oo soo sharaxday gabdhihii ugu badnaa waa ururka gabdhihii ugu badnaa soo bandhigay weeye 242 gabdhood ayuu soo sharaxay urur siyaasadeedka sincad taasi waxay isku tusinaysaa sida urur siyaasadeedka sincad oo gabdhaha muhiimad gaar ah u siinayo urur siyaasadeedka sincad waa ururka dhalinyarada waa ururka gabdhaha waa ururka waxgaradka waa ururka bulshooyinka waa urur u taagan isbedel inuu dalkan ka dhaco waa urur mucaarada oo u taagan inuu dalkan isbedel ka dhaco mucaaradka uu sincad u taagan yahay haddaan fasiro macnihiisu waxa weeye waa mucaarad wax dhisaya mucaarad constructive ah weeye oo wax dhisaya waa mid wixii wanaagsan taageeraya waa mid wixii xun oo la qalday maaragtay dhaliilaya ambaaraynaya waa urur wixii laga gaabiyay oo dawladdu ay ka gaabisayna tilmaamaya oo iftiiminaya runtii urur siyaasadeedka sincad wuxuu leeyahay ahdaaf dhow iyo mid dheer kuwiisa dhow waxaa ka mid ah inuu doonayo inuu u xoogsigto xisbi oo tartanka maanta lagu jiro ee golayaasha deegaanka sidaad la socotaan golayaasha deegaanku muhiimadooda ayay inoo leeyihiin waa dawladdii hoose waa dawladda xanan doonta degmooyinka waa dawladda rabo cashuurta degmooyinka inay ururiso dib ugu celiso iyadu maamusho ee aynan dawladda dhexe ku maamulin sidaa darteed waxa uu doonayaa inuu xubno macnada soo saaro u xilsiibto xisbi u
guulaysto kana mid noqdo xisbiyada ku tartamaya 10 sano ee soo socda siyaasadda Puntland marka ka bacdina haddii ilaahay uu tartamo hoggaanka sare iyo xildhibaanada dalka inay ku tartamo ayuu doonayaa war siyaasadeedka Sincad ahdaaftiisa fog waxaa ka mid ah in uu markuu Puntland xisbi ka taabaqaado uu noqdo in uu jaarta ka samaysto iskuna baahiyo dalka oo dhan Soomaaliya oo dhan hadday noqon lahayd galmudug hadday noqon lahayd Hirshabeelle hadday noqon lahayd Jubbaland hadday noqon lahayd xamar banaadir gobolka banaadir intaba inuu jaartar ku yeesho ayaa hadafkiisa fog ka mid ah siyaasadeedka Sincad waxa uu rabaa inuu isbedel ku sameeyo dhab ah isbedel la taaban karo xagga amniga xagga dhaqaalaha xagga shaqo abuurka runtii waxaan ognahay in ay Puntland u baahan tahay isbedel dhab ah sida Soomaaliya ay ugu baahan tahay isbedel dhab ugu baahan tahay